السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنة الكمركة للسود وهذا أدي هذا وما سنتهين ما أنت واحد وأنا صدح إلى باتنك بيش السدادات أغسطس سنة كلا بدأ كون إيه اللحية لباتنك muuqaal kan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago ninkii cadaanka ah ee cunsuriga ah isla markaana muslimiinta nacbaa ee Jake Lang oo shalay isaga iyo koox la socotay oo doonaysay in mudaharaad ay ka hor sameeyaan dowladda hoose ee magaalada Minneapolis ayaa la xiray isla markaana waxa lagu soo oogay dacwado ah in ay rabeen in ay kiciyaan qalalaaso haddaba markii ay yimaadeen xarunta dowladda hoose gawaaridooda oo la arkay in meel qaldan ay ku wadeen oo loogu talagalay dadku inay ku socdaan markaas kadibna kooxa mudaharaadayaal ah oo sugayay ayaa halkaas waxay bilaabeen inay ku tuuraan waxyaabo kala duwan nafsadooda ayay la baxsadeen markii dambena booliska ayaa labadii gaari oo Jake Lang iyo dadkii la socday waxay ku kala qabteen laba meelood oo kala duwan waana la xiray arintaas waxa shir jaraa'id ka qabtay duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey iyo kusimaha taliyaha booliska ee Minneapolis Bill Peterson waxayna sheegeen inaysan u dulqaadan doonin in magaaladan qof intuu yimaado Minneapolis uu kiciyo rabshado isla markaana nacayb uu abuuro arintaasina ay tahay mid xadgudub ah oo gabi ahaanba aan loo dulqaadanin saddex boolis ayaa sidoo kale shalay dhaawacantay marka arrimahaas oo idil ayaan rabaa inaan idinla wadaago ninkan cadaanka ee dhalinyarada ay Jake Lang waa naqaana waa nin gobolada Mareykanka ku wareego gaar ahaan meelaha muslimiintu ay ku badan yihiin isla markaana muujiya nacaybka uu muslimiinta u qabo waxa hadda uu bishii hore joogay magaalada Dearborn ee gobolka Michigan halkaas oo dadka muslimiinta gaar ahaan carabtu ay ku badan yihiin oo la arkayay isagoo dhahaya wadankan Christian ayaa iskale muslimiinta loogama baahno waa inay isaga baxaan horey waxaan u aragnay dhowr jeer isagoo kitaabka quraanka gubaya isagoo hilib doofaar iyo kitaabka quraanka meel ku wada reey oo dhahayo waa karinaya isla markaana Minneapolis horey ayuu u tagay January oo mudaharaad noocan la mid ah ayuu sameynayay waa tii rabshada ay ka dhaceen isaga xitaa la daqray markii dambena nafsadiisa uu la baxsaday mar kalena waa tii la xiray oo xarunta gobolka ee magaalada St Paul baraf lagu horsameeyay ayaa uu burburiyay kadibna waa tii la xiray marka shalay isaga iyo koox la socota oo 6 qof ah ayaa waxa ay yimaadeen xarunta dowladda hoose ee Minneapolis abaara 6 saac oo duhurnimo markii ay ku dhaweed laakiin labada gaari oo ay wateen sida aad aragtaan oo muuqaalkan aad ka aragtaan oo mid kamid ah cadaan oo midna oo madow ahaa wadada loogu talagalay baabuurtu inay maraan ma aysan marsiinin qaybta dadku inay maraan oo sidewalk oo pedestrianka dadka shacabka loogu talagalay ayaa baabuurtoodii ay soo marsiiyeen marka waxa sugayay kooxo halkaas iyaguna mudaharaad isaga ka soo horjeeday oo xarunta dowladda hoose ku sugayay marka mudaharaadkiisa waxa uu ugu magac daray mudaharaadka xurriyatul qowlka ayuu ugu magac daray isla markaana labadaasi gaari waxa la leeyahay 6 qof ayaa la saarneed isaga ayaa 7 ku ahaa marka dadkii meesha ku sugayay oo isaga ka soo horjeeday ayaa waxa uu isku dayay in baabuurtii uu soo dhaxmarsiyo taasi oo ay ka dhalan kartay in qof gaarigu uu dardaro ama uu ku dhinto ama uu ku dhaawaco maxaa yeelay dadkaas isaga ayay sugayeen mudaharaad isaga ay uga soo horjeedaan ayayna goobtaasi ku qabanayeen ninkan waa si iclaamiya mudaharaadyadiisa ka hor inta uusan tagin oo barihiisa bulshada ayuu ku sii sheega marka Minneapolis meelaha sida gaarka ah oo u bartilmaameedsanayo ayaa tahay maadaama Soomaalidana uu nacab yahay dadka muslimiintana uu nacab yahay markii uu soo gaareen labadiisa gaari isaga ayaa ka soo baxay oo bahasha xabada celisa ay u xiran tahay funaanad cadna wata markaas kadib dadku waxay bilaabeen inay waxyaabo ku tuuraan taasina waxa ay ka dhalatay meeshii in qalalaaso ay ka dhacdo booliska Minneapolis xarunta dowladda hoose gudaheeda ay ku jireen kaamaradaha ayayna kala socdeen sida ay wax yihiin markii arkeen in xaaladdu ay faraha ka baxayso ayay boolisku banaanka u soo baxeen waxayna isku dayeen dadkan in ay kala ceyriyaan maxaa yeelay xaaladdu qalalaaso ay faraha ay u gashay maxaa yeelay dadku waxay bilaabeen in gawaarida xitaa huudka ay ka fuulaan in waxyaabo ay ku tuuraan sidaas darteed waxa laga cabsaday meesha in qalalaaso zaa'ida ay ka dhalato boolisku marka waxa ay sheegeen in labadii gaari oo Jake Lang iyo kooxdiisu ay wateen ay dadkii meeshii loogu talagalay inta ay soo mareen dadkii ay soo dhaxmareen waliba iyagoo tartiib u socda markii dambana wadada markii ay ku dhaceen la arkay xitaa iyagoo qaybta sidewalk gaariga ku kaxeynaya oo qaab xooli ah ama speed ku kaxeynaya taasi oo dadka qatar gelisay marka
markii ay bagawaridoodii meeshii ay ka tageen kadib boolisku isla markiiba waxa ay la xiriireen booliska kala duwan ee gobolka Minnesota gaar ahaan Minneapolis iyo gaarkeeda waxaana la yiri labada gaari oo nambarkaas iyo nambarkaas leh hal la qabto labadii gaari mid kamid ah oo saddex qof ay saarnaayeen waxa lagu qabtay meel u dhow US Bank Stadium oo ku yaala magaalada St. Paul halka gaarigii kale oo afar qof ay saarnaayeen meel u dhow Mall of America lagu qabtay marka boolisku labadii gaari iyo dadkii saarnaaba waa ay qabtay labadii gaarina waa la towgareeyay booliska ayaa meel geeyay lixdii qof oo Jake Lang oo 7 uu ku yahayna waa la xiray waxaana lagu soo eedeeyay dacwada ah in ay qalalaaso doonayeen in ay kiciyaan saddex boolisa ayaa sidoo kale halkaasi ku dhaawacantay oo mid kamid ah waxyaabo adag madaxa looga dhuftay mid sinta ayuu dhaawac ka gaaray midna labada gaari oo ay wateen Jake Lang iyo kooxdiisa ayaa boolis lugta ka maray laakiin waxa la leeyahay saddexdoodaba muddo kooban ay isbitaalka ku jireen oo waa laga soo saaray afar qof oo kale ayaa jirta oo iyaguna xarunta dawladda hoose ee Minneapolis horteeda lagu xiray oo iyagana lagu soo eedeeyay in anshaxumo iyo qalalaaso ay sameeyeen marka hadda waxaa la xiray guud ahaan marka 11 qof oo 7 la socotay Jake Lang iyo sidoo kalena 4 qof oo banaanka xarunta dawladda hoose lagu xiray markaas kadib galinkii dambe ee shalay ayaa waxa shir jaraa'id qabtay duqa magaalada Minneapolis Mayor Jacob Frey iyo kusimaha taliyaha booliska ee Minneapolis ninka la yiraahdo Bill Patterson marka duqa magaalada Minneapolis waxa uu sheegay in Jake Lang uu u yimid Minneapolis in qalalaaso uu ka sameeyo waxaana yiri uma dul qaadanayno in dad shacab ah oo meel jooga in aad gawaare ku soo kaxayso taasi oo ka dhalan kartay dhaawac iyo waliba dhimasho waxaana uu xaqiijiyay in qofku nacayb hadal nacayb ah waa uu jeedin karaa laakiin waxa uu xaqiijiyay in aad qalalaaso kiciso qatar muuqatana aad samayso dadkana aad dhibaatayso dambiyo dhinaca nacaybkana aad gasho waxa yiri arintaasi xadgudub ayay ku tahay dastuurka waxaana uu sheegay arintaas inay tahay mid gabi ahaanba aan loo dul qaadanaynin haddaba waa kan duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey oo arintaasi ka hadlay approximately 11:50 a.m., far-right extremist and known racist Jake Lang arrived near Minneapolis City Hall. Both vehicles then drove onto the sidewalk in front of City Hall toward a crowd of people that were gathered there. Many of them could have easily been injured or even killed. If you're going to come in here, you're going to drive on the sidewalk, you're going to incite a riot, and you're going to be a problem for people's safety, then you're going to get arrested. You can use hate speech even if we all find it to be abhorrent. However, there are exceptions to that general rule. Incitement of violence, clear threats, harassment, hate crimes, these can all be potential constitutional violations. sidoo kale kusimaha taliyaha booliska ee magaalada Minneapolis Bill Patterson ayaa isaguna waxa uu sheegay in markii xaaladdu ay ka taagneed xarunta dawladda hoose aysan suuragal ahayn in halkaasi dadka ay ku xidhaan waxa uu yiri markii hore waxaan isku daynay inaan dadkan kala ceyrino markaas kadibna kuwa dhibaatada waday aan qabanno isagoo sheegay in booliskii goobtaasi ku dhaawacmay hadda xaaladoodu ay wanaagsan tahay oo mid kamid ah waxyaabo adag madaxa looga dhuftay isagoo sheegay in boolisku marnaba aysan u dul qaadan doonin in magaalada degan inta aad timaado aad qalalaaso aad ka samayso haddaba waa kan kusimaha taliyaha booliska ee magaalada Minneapolis Bill Patterson oo isaguna arintaasi ka hadlay. It was not safe for us to make any sort of arrests on those individuals in that large crowd. The best thing from my perspective was for what did occur and to let those vehicles to leave the area, which essentially de-escalated things. And then from there, our public safety partners helped us make arrests. Anytime there is crowds of people gathered, the last thing we want to see is vehicles driving towards them when we don't know their full intentions. A hard projectile or object that struck another officer in the side of the head. Thankfully, they had a helmet on. marka duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey waxa uu yiri maalinta bariyaha oo isniina xalay xabsi ay ku bariyeen dadkaasi la xiray oo Jake Lang iyo kooxdiisa 6 qof oo la socotay marka dacwado dheeraad ah ayaa laga yaabaa in lagu soo ogo hadda in ay sabab rabeen qalalaaso darteed ayaa loo xiray marka dacwado kale oo dheeraad ah ayaa laga yaabaa in lagu soo ogo maalinta bariyaha ama maalmaha soo socdo waan arki doonaa dacwadahaasi kale oo lagu soo ogayana waxa ay noqdaan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono saaxiibkeen cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo